maxay muhiimad ah oo ay leedahay in aad qof muslim ah iska cafisid bal walaal ka faa'iideyso muhiimaddu ay leedahay cafinta waxaad arkaysaa oo misna maqlaysaa dad fara badani oo leh cafin maayo bisha ramadaan markay soo dhowdahay ayay waxay ii soo dirayaan muuqaalo ama weliba codad la soo jarjaray kuwaasi oo ku salaysan in ay kaa dalbanayaan ama ku weydiisanayaan cafintu waxa ay leedahay faa'iido fara badan waxaa ka mid ah in alla weyne agtiisa aad ka heli doontid khayr ajar iyo weliba jeclaanshiyo oo alla ku jeclaanayo haddii uu alla ku jeclaado waxaa ku jeclaanaya dhammaan aadanaha ama waxaa ku jeclaanayo dhammaan addoommada alla subxaanahu wa tacaala haddii ay allah iyo addoommadiisa ku jeclaadaan waxaa tahay qof karaamaysan ugu dambaynna geli doona jannada haddii uu allah kaa yeelo sidoo kale waxaad heli doontaa in dhammaan qalbigaaga uu ka fogaado xaqdiga xasnimada iyo culayska waxaad noqon doontaa qof deggan yacnii qalbigiisa saafi yahay waxaad hanti doontaa dhammaan furayaasha qulubta aadanaha taasi oo la macno ah in aad noqon doontid qof dadku dhan ay wada aaminaan haddii aad aragtid qof dadku iska wada jecel yihiin isaga oona wax u samaynin qofkaasi waa qof aad u cafin badan cafintu waxa ay leedahay faa'iida intaa ka badan alla subxaanahu wa tacaala qur'aankiisu wuxuu ku leeyahay walyacfuu walyasfaxuu alaa tuxibbuuna an yakfira allaahu lakum wallaahu ghafuurun raxiim taasi oo macnaheedu tahay ha cafiyaano oo ha saamaxaano miyaynan jeclaan in alla weyne idiin dhaafo alla waa dhaafe yacnii dhammaan dembiyada dhan dhaafa haddana naxariista sidoo kale alla subxaanahu wa tacaala isagoo dardaarmaya xabiibkeenna moxamed waxa uu ku dhahay khudi ilcafwa wa'mur bilcurfi wa acrid cani iljaahiliin taasi oo macnaheedu tahay cafis ka qaado wanaaggana amar kuwa jaahiliinta ahna ka jeeso walaalkaygan muslimka ahow haddii ay ku soo gaarto muuqaallo ama weliba qoraahyo ku salaysan inaad iska cafiso qofkaasi waxaan kaa codsanaya inaad cafisid oo aanan dib u fiirin wixii uu kaa sameeyey adiga oo awooda inaad ka aarsatid cafinta ayaa ah midda saraysa cafinta ayaa ah midda qofka darajada u yeesha iska cafi walaal allahna wada cafiye